Donald Trump ayaa si rasmi ah ugu guuleystay doorashada madaxtinimada Mareykanka. Ninkan eedeymaha badan loo haysta ayaa ka badbaaday isku day 2 jeer oo dil ah inta uu ku jiray ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka. guushiisa oo loo bixiyay soo kabashada qaranka ayaa kaga dhawaaqay Florida. guushi uu ka gaaray gobolada North Carolina, Wisconsin, Pennsylvania iyo Georgia ayaa si weyn u caawisay Donald Trump. codadkan oo loo yaqaan electoral ayaa sidoo kale inta uu ka helay 279 cod isagoo u baahnay 270 oo kaliya. madaxweyne ku-xigeenka hadda ee Mareykanka Kamala Harris ayaa weli la hadlin kadib darbaaxadii ku dhacday xisbiga talada haya ee dimuqraadiga. waxayna baajisay isku soo baxyo u qorsheysanay kooxda deeqaha waxaana la filayaa in ay markaas aqbasho in laga adkaaday oo ayna hambalyo u dirta Donald Trump ayaa sidoo kale inta durboba hambalyo ka helaya madax badan oo caalamka ah. ninkan oo daadiisa ay tahay 78 sano jir ayaa looga adkaaday doorashadii 2020 ee Mareykanka ayaanan quusanin oo dib u soo rogaal celiyay. wuxuuna noqday qofkii labaad aynan markaasi 2 tartan oo isku xigta aan ku guuleysanin balse dib u soo laabtay 2 jeer xilli xukun ee markaasi uu ka talinayay aqalka cad ee Mareykanka. waxa weli uu sheegayaa in markaas laga xaday natiijada doorashooyinkii 2020 waxaana sidoo kale inta uu ku furay dacwado badan iyo sidoo kale inta waxaana ku furan dacwado badan iyo fadeexada u badan kufsi, laakiin taasi kama hor istaagin tartanka iyo in uu weliba u adkaado sidii la rabay. caalamka ayaa isha ku haya sidii uu u dhaqmi doono muddaxileedka cusub Donald Trump, isagoo aanan si weyn loo jecleen habdhaqankiisii caalamiga ahaa ee uu soo bandhigay muddaxileedkiisii hore.